magaalada caasimada ee Muqdisho ayaa waxaa ka soconaya dadaalo ku aadan howlo nadaafadeed ee lagu soo celinayo bilicda iyo nadaafada degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo maamulka gobolka Banaadir uu wado howlo lagu horumarinayo nadaafada iyo bilic soo celinta gobolka Banaadir ayaa waxaa howlaha nadaafadeed ka qayb qaadanaya shacabka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir waana isxilqaan waaxda nadaafada maamulka gobolka Banaadir ayaa qayb weyn ka qaadanayso dardargelinta howlaha nadaafadeed ee ka soconaya degmooyinka gobolka Banaadir taasi oo qayb ka ah barnaamijka isxilqaan oo ay dawladda Soomaaliya ku dhawaaqday kaasi oo looga gol leeyahay in looga qayb qaato horumarinta nadaafada iyo dib u dhiska dalka ayadoo ay jirto dadaaladaasi ku aadan howlaha nadaafada ee lagu dardargelinayo degmooyinka gobolka Banaadir ee la doonayo in lagu soo celiyo nadaafadii caasimada Muqdisho ay lahayd berisamaadkii ayaa haddana waxa meelaha qaar iyo wadooyinka qaar ee degmooyinka lagu arkaya nadaafad darro baahsan waxaadna arkaysaa qashin fara badan ee meelaha qaar yaala taasi oo ay ku soo shubayaan dadka goobahaasi degan waxayna taasi caqabad ku tahay howlaha nadaafada ee ka soconaya caasimada magaalada Muqdisho halkan waa wadada Via Moscow ee marta buundooyinka waxaana ka muuqanaya nadaafad darro aad u baahsan oo ka dhashay dadka degan xaafadahaasi isku raranta ah ee loo yaqaan Buurkaroole oo ku soo daadiya biyaha wasaqaysan xilliyada habeenkii kuna soo daadiya qashin fara badan taasi oo saameyn ku yeelatay dadka degan xaafadahaasi iyo shacabka Soomaaliyeed ee isticmaala wadadan ayaa waxaa goordhow dib u dhis ku sameeyay maamulka gobolka Banaadir waxaana hadda ka sameysmay godad waaweyn oo fadhiistay wasaqda biyahaasi oo ay soo daadinayaan dadka degan xaafadahaasi buurka isku raranta ah markii aad maraysid goobahaasi waxaa kuu soo uraya bulaacado ka samaysmay wadada oo sidii boorsaneero camal u soo uraya waxaana ka dhalan karo arrintaasi caafimaad darro baahsan ayadoo meelaha qaar oo biyahaasi wasaqaysan ay fadhiisteen aad ku arkaysid in ay ku ganacsanayaan dadka wadadan Via Moscow ayaa waxa ay kala qaybisaa degmooyinka Xamar Jajab iyo degmada Waabari gobolka Banaadir waxaa muhiim ah in loo sameeyo barnaamij wacyigelin ah ee lagu fahamsiinayo bulshada ku nool xaafadahaasi dhibaatooyinka ka dhasha nadaafad darrida isla markaana loo helo hal arrimahaasi nadaafad darrida ah iyo biyaha wasaqaysan ee lagu soo daadinayo wadada sidoo kale wadada Via Tanzania ee kala qaybisa degmooyinka Xamar Jajab iyo Waabari ayaa waxa ay ka sameeyeen maamulada degmooyinkaasi howla nadaafadeed ayadoo loo baahan yahay in wax laga qabto godadka ka qodmay wadooyinkaasi oo ay ka jirto nadaafad xumo baahsan sababtoo ah nadaafadu waa iimaanka barkiisa gudoomiyaha degmada Waabari ee gobolka Banaadir Mahad Cilmi Cali ayaa ka warbixiyay ololaha nadaafada ee ka bilaabmay degmada Waabari wuxuuna ugu baaqay shacabka ku nool degmada Waabari inay ka shaqeeyaan nadaafada degmada ayna joojiyaan biyaha wasaqaysan oo ay dadku qaar ku soo daadinayaan wadada laamiga nadaafadu waa qofka muslimka iimaankiisa waxa ugu yar oo la sameeyo waa inaad hortaada ama dariiqa aad jidka ka qaado wasaqda taala waa caafimaadka iyo badqabka qoyska iyo bulshada dhammaan waxaan ugu baaqaynaa bulshada degmada Waabari inay nagala shaqeeyaan nadaafada gudoomiye ku-xigeenka dhinaca arrimaha bulshada ee maamulka degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Cali Cabdulqaadir Faarax ayaa ka hadlay howlaha nadaafadeed ee ka bilaabmay degmada Xamar Jajab dadka waxaan soo jeedin lahay inay boosteetooyin samaystaan oo biyaha wasaqda isaga shubaan jidkii malaayiinta dollar lagu dhisay oo naga baaba'ay waxa baabiyayna waa biyo wasaq agaasimaha waaxda nadaafada maamulka gobolka Banaadir Cabdicasiis Goodax Barre ayaa sheegay in waaxda nadaafada maamulka gobolka Banaadir ay qayb weyn ka qaadan doonaan howlaha nadaafada ee lagu soo celinayo bilicda degmooyinka gobolka Banaadir warka gudoomiyaha degmada Waabari waa la socotaan isbuucii la soo dhaafay warta nabadaan joognay haddana degmada Waabari aan anaga la joognaa isbuucan oo dhan ilaa Khamiista laga gaarayo hadduu Ilaahay yiraahdo degmada Waabari gudoomiyaheeda waa la shaqeynaynaa
magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa berisamaadkii ay lahayd goobo iyo wadooyin taariikhi ah waxayna bilicda nadaafadda ay ahayd mid aad u wanaagsan waxaana bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir la gudboon in ay ka shaqeeyaan sidii ay u soo laaban lahayd nadaafadii iyo horumarkii ay lahayd caasimadda magaalada muqdisho si loo helo bulsho caafimaad qabto. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.